waxaan ka dhaqaaqnaa jaamacadda si ardayda wixii ay barteen in bulshada ugu celino halkaas waan tagi doonaa sariibada magaalada Berbera oo runtii hooyooyin badan oo cudurrada jiitama la nool ay ka shaqeeyaan sidaa awgeed waxaan isla garan inaanu maanta medical check up guud u soo sameeyno ay ugu horeeyaan xanuunada dhiigkarka xanuunada macaanka iyo si guud caafimaadkooda guud tan waxay ku timi ardayda marka tayo badan loo sameeyo si ay ugu celiyaan bulshadii ardaydana waxa weeye ardayda si qalin jabin doonta ama ka baxaysa seniorka kana baxday internshipkii isbitaalka ayaanu doonay inaan ku celino bulshadii wixii ay barteen in ay adeegyadoodii si bilaash ah uga shaqeeyaan ورحمة الله وبركاته maanta waxaan soo booqatay ardaydii golis oo naga caawinaysa hooyooyinka dhiigkarka intuu maraayo cabiraya uu sheegaya macaanka intuu maraayo uu sheegaya mar koobaad iyo mar labaad beelaha baa mahadaale marka ku xigtana inta soo abaabushay ardayda soo abaabushay baan mahad celinaa maadaama hooyooyinkii saribada weyneeda Berbera maanta nagu soo booqdeen ilaaha baa sharaftaale ilaaha baa mahadsan maanta waxaan noo timi ardaydii jaamacadda Golis waxay eegayeen caafimaadka hooyooyinka saribada marka qaar macaan la yaqaan macaan lahayn labadaba way isugu jireen way ka heleen qaar macaan leh inuu duceynaynaa ardada inay insha Allah ilaahay guuleeyo dalka u wax bay u yihiin soo barbaaraan dhaqaatiirtina way noo yimaadeen way la socdeen ayagana talayna siiyeen macaanka indhaha kaliyaha intaba haddii aanu nahay baxda saribada guddiga saribada saribada weyne Berbera saaka waxaana loo keenay adeegii caafimaad hablii ardaydii jaamacadda Golis ka qalin jabinaysay caafimaadka dhamaantayo shay wax nagu sameeyeen baaratiin macaankii hadday tahay dhiigkarkii hadday tahay adeegayagii bulshada oo tafatiranayay noo keeneen aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa goladan caafimaadka jaamacadda Golis maxaa raday baadhe islaamaha hooyooyinka waxay ogaan jirin ismana baaraan marka aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa hadday yihiin habaa baaraya waxaan ku dhaad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa si wanaagsan bay noo baareen dhiigkarkii macaankii maxaa raday wax laga helay oo cirka ku marayo wax ladan wax meel dhaxaada intaba way yeesheen inamadaana waan u mahad celinaynaa aad iyo aad baan idinka mahad celinaa jazaa Allah khayr dadii wax la baray tababarada fara badan soo qaatay isbitaalka la geeyay waqti badan ku jiray jaamacadda tiyeeri fiican lagu dhigay muddo 3 sano ka badan ay soo dhiganaysay annaguna wax badan soo barnay baray Allah wahayn iyaguna inuu uga faa'iideeyaa si tabarucaada dadka waaweyn ee waalidiinta saribada iyo agaarkeeda ka shaqeysta isku jooga marka iyagu maalin kasta xil week oo dhan maalin jimcaha maalin kale oo fasax ahayn maalin dadku mar walba iyagu shaqeeya aan helin la nool marka xanuunada waaweyn ee dadku ay inta badan la noolaadaan krooniga sida dhiigkarkii ay tahay macaanki tahay haddii ay tahay xaasidii allergy waxyaabaha qofka bilaadanka saameeya la nool annaguna waxaan u sameynay talo caafimaad oo qofka khusaysan sidoo nolosha u maareyn lahaa oo ilaalin lahaa iyo hadhow toole sidoo dhakhtar ugu xirnaan lahaa oo xanuunada qaarkood u baahan in dhakhtar ku xirnaado qofka daawooyin ku qaadanaya dhibaatooyinka leeyihiin soo saameynayaan iyo sida ay isaga laftiisa hadhow toole u anfacayaan xanuunkiisa oo kantarool una joogteenayo iyagoo inta badan sheegay daawooyinka ilaawaan marka qaarkood meesha ka saaraan marka intaasaan ku xidhin iyo dadka macaanka qaba dhibaatooyinka ku imaanayna hadday tahay kaliya ku dejinayo hadday tahay indhaha oo indhaha u geysto hadday tahay lugaha iyo neerfaha xasu dhaawaco inta kala talo iyo dhiigkarka laftiisa mushkiladaha uu leeyahay iyo cawaaqibka oo keeno labadaba inaan kala talino